soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiina Sister Films bal sawiro adiga oo mechanic sameeya baabuurta laakiin si lama filaan aad u ogaato inaad tahay dhaxal sugaha boqortooyada ugu taajirsan Ingiriiska sheekadeenu waxay ka bilaabanaysaa mechanic lagu magacaabo Johnny kaas oo maalintiisa ku qaadan jiray shaqo uu ka hayay xarun yar oo lagu sameeyo baabuurta maalin ayaa saaxiibtiis beed u timi oo u sheegtay warka uu in badan ka baqayay beed waxay ku tiri waxaan rabaa inaan kala hadhno waxay u baahneed qof u ballan qaaday inuu nolosha la wadaagayo Johnny-na mar walba uu ka fogaan jiray arrimahaas xaqiiqadu waxay ahayd in John uu aad uga baqayay guurka asal ahaan wuxuu ku soo koray aabba la'aan wuxuuna aaminsanaa in aabihiisa oo la kaca uga tagay isaga iyo hooyadiis cabsidaas ayaa qalbigiisa xidid ku yeelatay waxayna u diiday inuu qoyskiisa samaysto laakiin hadda beet way ku daashay sugitaanka waxay eedda kala taga dusha u saartay Johnny laakiin gudaheeda waxay u baxaysay sababtoo ah waxay aaminsaneed in Johnny uu meel gaadhay isagoo faqiirana uu dhiman doono tegitaankii beet aad ayuu u dhaawacay Johnny laakiin wuxuu go'aansaday inuu hooyadiis daryeelo oo uu ku qanco noloshiisa caadiga habeenkaas Johnny wuxuu tagay baaru inta badan waqti kula qaadan jiray saaxiibtiis hadda wuxuu u muuqdaa sidii nin jacayl ku fashilmay oo masraxa cod hees dheer uga qaadaya isla markiiba haweeney ayaa baarka soo gashay indhaheeduna waxay toos u qabteen Johnny markii ay heestu dhammaatay waxay u timi Johnny waxayna isku bartay magaceeda Brilliance waxay u sharaxday inay tahay la taliyaha Duke Glaswich ee dalka Ingiriiska intaas kadib waxay Johnny siisay tikid diyaaradeed waxayna u sheegtay inuu aado si uu la kulmo Duke intaas kaliya maaha waxay sidoo kale tustay shahaadada dhalashada oo cadeynaysa in Johnny uu yahay wiilka dhabta ah ee Duke arrintan ayaa Johnny ka dhigtay mid amakaagsan wuxuuna warqadii dib ugu riixay dhankeeda Johnny wuxuu yiri mar raba inaan la kulmo nin 30 sano ka hor qoyskiisa sidaas uga tagay halkan ayay sheekadiisu ka bilaabatay subaxdii xigtay Johnny wuxuu toos u aaday hooyadii Duke si uu u weydiiyo xaqiiqada markii ay hooyadii fahamtay in wax badan ogaaday oo aysan hadda waxba qarin karin ugu dambeyn waxay uga warantay sheekada waxay Johnny uga warantay aabihiis markii hooyada Johnny iyo Duke Glaswich William ay dhalinyaro ahaayeen way kulmeen oo way isjeclaadeen laakiin markii qoyska William ay diideen inay aqbalaan guurkooda labadooduba way baxsadeen William wuxuu u ballan qaaday hooyada Johnny inuu wax walba ka tagi doono oo uu la joogi doono weligiis laakiin cadaadiska qoyskiisa awoodda leh ayaa ugu dambeyntii dib u soo celiyay arrintan ayaa qalbi jabisay Duty guurkiina way iska joojisay laakiin wax yar kadib waxay ogaatay inay uur leedahay waxayna isku dayday inay William kala hadasho ilmaha waxayna u dirtay warqado badan laakiin weligeed wax jawaab kama helin iyadoo aaminsan in William uu ilaaway waxay go'aansatay inay kaligeed wiilkeeda kariso hadda waxay u sheegtay Johnny inuu baxo oo uu la kulmo William si uu u barto aabihiis oo uusan weligii la kulmin isagoo yeelaya hadalkii hooyadiis Johnny wuxuu gaadhay qasriga weyn ee Duke Glaswich oo gurigiisa u yaqaan Brilliance ayaa halkaas ku soo dhaweysay waxayna tustay qolal dhowr iyadoo dalxiis yar ugu samaysay in muddo kadib waxay geysay qolka waxbarashada ee Duke waxayna u sheegtay inuu halkaas ku sugo waxayna sidoo kale ku wacyigelisay inuusan waxba taaban laakiin isla markii ay dibadda u baxday Johnny wuxuu qaatay seef qadiimi ah oo bilaabay inuu ku ciyaaro wax yar kadib William ayaa gudaha soo galay aabaha iyo wiilkuna wajigooda aad buu isugu ekaa qaabkooda hadalka iyo dhaqankooda ayaa u muuqday kuwo isku mid ah markii uu John ogaaday in ninka hortiisa taagan uu yahay aabihii uusan weligiis la kulmin xaaladdu xoogaa way adkaatay dhanka kale William wuxuu mooday in John uu halkan u yimid inuu lacag weydiisto laakiin ma uusan ogeyn in Brilliance ay halkan ugu yeedhay eedaynta lacagta ayaa aad u dhaawacday qalbiga Johnny wuxuu yidhi waxaan kaliya u yimid inaan la kulmo aabahay oo nolosheeda ka baxay sanado ka hor laakiin markii uu arkay dhaqanka qabow ee aabihiis kadib sanado badan oo aysan arkin Johnny aad buu u niyad jabay wuuna ka cadhooday ka hor inta uusan Johnny bixin William wuxuu weydiiyay Duty kadib Johnny wuxuu u sheegay in hooyadiis ay rabtay inay noqoto fanaanad laakiin may noqon sababtoo ah isaga ayay ahayd inay koriso may sugi karin inta ay fursad weyn ka helayso shaqooyin yar oo caadi ah ay qaban jirtay Johnny hadda aad buu uga xanaaqsanaa aabihii sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu meesha ka tago laakiin Brilliance ayaa isku dayday inay celiso waxay xasuusisay inuu yahay wiil ka tirsan qoys boqortooyo wuxuu yahay dhaxal sugaha kaliya ee aabihiis isaga ayaana mar dhow noqon doona Duke Glaswich laakiin Johnny wuxuu ka yiri William xaqiiqdii ma rabo inaan ninkan la joogo Brilliance ayaa weydiisay ii sheeg xagee aadaysaa Johnny ayaa si xanaaq leh u yiri hotel baan aadayaa maxaa dhacay kadib markii uu baxayay indhaha Johnny waxay qabteen gaari duuga oo garaashka yaala gaarigaas aad buu ula dhacay laakiin boor badan ayaa saarnaa sidaa darteed wuxuu daaqada ku qoray fariin gaaban oo ah in si dhaqso ah loo nadiifiyo intaas kadib wuxuu u dhaqaaqay baar ka ag dhawaa waqti badan kama soo wareegin markii uu guriga ka soo baxay Brilliance ayaa iyaduna raadisay oo halkaas tagtay waxay u sheegtay Johnny in William uu rabo inuu qasriga dhexdiisa ku noolaado muddo 7 ah laakiin Johnny uu diiday oo yiri ma rabo inaan tago markaas ay Brilliance heshiis hor dhigtay waxay tiraan ciyaarna daartiis haddii aan ka badiyo inaad qasriga ku laabataa oo joogtaa haddii aad badisana dib ayaad ugu noqon kartaa America waxaan sidoo kale aqbali doonaa hal shay oo aad weydiisato Johnny uu aqbalay isagoo isla gabadhan waad ka badin kartaa laakiin Brilliance bartilmaameedkeedu aad buu u fiicnaa si fudud ayayna u badisay si kastaba ha ahaatee Johnny waa laga badiyey sidaa darteed uu aqbalay inuu qasriga ku laabto kadib markii ay tustay qolkiisa Brilliance waxay fadhiisatay fadhiga iyadoo
daawanaysa baraha bulshada ee Johnny isla markaas gabadh shaqaale ah oo la yiraahdo Annie ayaa gudaha soo gashay waxay aragtay Prudence oo dhoola cadeynaysa iyadoo daawanaysa sawirka Johnny iyo hooyadiis Annie ayaa isla markiiba si kaftana u tiri maxaa jira wiilkaad ka heshay laakiin Prudence ayaa si degdeg u tiri maya waxaasi ma jiraan subaxdii xigtay markii ay Prudence tagtay qolka Johnny waxay u timid isagoo sameynaya phonograph duuga oo aan shaqaynin sanado badan ilmuddo kadib waxay u kaxaysay baaskiil si uu u daawado dhulka duukiga waxay u sheegtay in duukiga Glaswich uu qiyaastii leeyahay 42,000 oo hektar dhulka badankiisa wuxuu ahaa beero dhulkooda waxaa ku yaala kaniisad gaara iyo sidoo kale meel qoyska boqortooyada lagu aaso Prudence waxay sidoo kale u sheegtay in aabihiis William uu kharash gareeyay hantidii qoyska u hadhay isla markaana uu ka tagay deen aad u weyn intaas kadib Prudence waxay Johnny geysay beer halkaas oo uu ku soo dhaweeyay nin oday oo lagu magacaabo Finch Johnny wuxuu markiiba arkay mashiinka wax shiida oo jabay kaas oo aan shaqayn muddo 10 sano ah markii uu weydiiyay dalagga beetrootka ee meesha yaala Finch ayaa u sheegay in maalmahan aan beetrootka faa'iido badan laga helin wuxuu kale oo u sheegay in aabihii William uu yahay qof aad u wanaagsan weligiis kama qaadin karo beeralayda ka shaqeysa dhulka duukiga markii ay ka soo laabteen beerta Prudence waxay isbartay Johnny iyo inaadeerkiis Alistair haddii William uusan ilmo dhalin isaga ayaa noqon lahaa duukiga xiga kadib iyaga oo dhex socda beeraha Prudence waxay Johnny u sheegtay fadlan ka fikir inaad noqoto duuki gabi ahaanba ma raba in Alistair uu fadhiisto kursigaas kadib waxay si furan uga sheekaysay sheekadeeda Johnny waalidkeed sanado badan ayay u shaqaynayeen qoyska duuke sidaa darteed waxay ku soo kortay qasriga markii ay jirtay 8 sano waalidkeed waxay ku dhinteen shil waqtigaas William ayaa qaatay oo u koriyay sidii gabadhiisa oo kale iskuulkii ugu weynaa ayuu geeyay wuxuuna u sameeyay wax kasta oo ay rabtay sababtaas awgeed ayay uga mahadcelinaysay William waxay rabtay in duukiga xiga uu noqdo qof u qalma sida Johnny oo kale hadda waqti badan lagama joogin in qasriga ay yimaadeen marti sharaf leh waxaa ka mid ah Alistair iyo hooyadiis labadoodubana aad bay ugu heelanayeen inay hoos u dhigaan Johnny markasta oo ay fursad ku helaan waxay aaminsanaayeen in Johnny uusan waxba ka ogeyn habnololeedka boqortooyada maadaama uu ku soo koray Ameerika sidii qof caadi ah kadib intii lagu jiray fardafuulkii wuxuu isku dayay inuu isaga ku digto wuxuuna aad u hubay in Johnny uusan aqoon sida faraska loo kaxeeyo laakiin Johnny wuxuu maareeyay faraska si aad u fudud taas oo qof walba la yaab ku noqotay intaas kaliya maaha wuxuu sidoo kale ka badbaadiyay Alistair inuu dhaco in muddo kadib Johnny wuxuu ka soo muuqday jikada halkaas oo uu ku sameeyay cabitaan beetrooda uuna siiyay qaar ka mid ah shaqaalaha kadib aana waxay tiri hore uma jecleen midhahan gabi ahaanba sababtoo ah dhadhankooda wuxuu ahaa yara qadhaadh laakiin markii aan dhadhamiyay cabitaankan uu sameeyay Johnny aad baan ula yaabay sida uu u dhadhan fiican yahay Johnny wuxuu u sharaxay inuu leeyahay faa'iidooyin badan isla markiiba Prudence ayaa timid halkaas waxayna qof walba ku amartay inuu shaqada ku laabto kadib iyada lafteedu cabitaankii ayay dhadhamisay aad bayna uga heshay intaas kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkan aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay waxay noo tahay dhiirigelin haddii aynu soo noqono muuqaalkeena fiidkii Johnny ayaa isku diyaarinaya casho gaar oo ka dhacaysa qasriga markii uu arkay Prudence oo ku labisan dhar qurux badan aad buu ula yaabay quruxdeeda si kastaba ha ahaatee intii lagu guda jiray cashada Johnny xogaa dhiba ayaa qabsaday bilowgii waxaa saxan ka saarnaa kalluun yaab leh kaas oo markuu arkay uu ka xumaaday isla markiiba Alistair ayaa ka faa'iidaystay fursadaas oo bilaabay inuu ku maadsado isagoo leh malaha waxba kama ogi dhaqanka miiska boqortooyada hawlwelin gadaal ayaan kaa bari doonaa haddii aad u baahato laakiin Johnny gabi ahaanba dhag jalaq uma siin wuxuuna isla markiiba bilaabay inuu goobta ku kaftamo isagoona ka qosliyay dhammaan martidii miiska fadhiday tani waxay cadaysay inuusan ka baqaynin Alistair iyo hooyadiis wuxuu jawaab fiican u hayay hadal kastoo macno darro oo ay yidhaahdaan cashada dhammaadkeeda Alistair ayaa istaagay isagoo faanaya wuxuu yidhi waxaan aad ugu haweenahay inaan noqdo duukiga xiga laakiin isla markiiba Johnny ayaa isaguna ka istaagay kursigiisa qof walbaana uu ka yaabiyay isagoo yidhi adiga maaha aniga ayaa noqon doona duukiga xiga aniga ayaana la wareegi doona booska aabbahay isla daqiiqadaas shawigii qolka ayaa isla markiiba isbedelay Prudence-na aad ayay u faraxday William-na wuxuu u muuqday mid aad u faraxsan maxaa yeelay weligiis wuxuu rabay in wiilkiisu isaga bedelo kadib wuxuu William qof walba hortiisa ka qirtay in Johnny uu yahay wiilkiisa isaguna uu noqon doono duukiga xiga ee Glaswich markii ay taas maqleen Alistair iyo hooyadiis cadho ayay la qarxeen waxay gaar ula baxeen William si ay kaligood ula hadlaan laakiin William uu ka adkaystay hadalkiisa wuxuuna yidhi Johnny waa wiilkayga dhabta ah haddii uu rabo inuu noqdo duuki xaq ayuu u leeyahay dhanka kale Johnny iyo Prudence waxay aadeen baar si ay ula dabaaldegaan saaxiibadood habeenkaas Johnny hurda way ka imaan weyday sidaa darteed wuxuu aaday garaashka oo bilaabay inuu ka shaqeeyo gaadhigii duuga ahaa wax yar kadib William ayaa sidoo kale yimid halkaas wuxuuna weydiiyey Johnny maxaad u rabtaa inaad noqoto duuki wuxuu kaloo qortay inuu isagu markuu noqonayo duuki uusan noqon wax uu sameeyo iyagoo sidan u wada sheekaysanaya ayay gaadhigii hagaajiyeen si tartiibana isugu dhawaadeen maalintii xigtay Prudence waxay bilowday inay Johnny barto qoobka ciyaarka waxay isku diyaarinayeen xaflad
soo socota xafladaas dhowr xubnood oo ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska ayaa imaanayay Prudence waxay rabtay in John uusan gabi ahaanba ka liidan hortooda intii lagu jiray casharada qoobka ciyaarka Hannah ayaa si lama filaan u timid halkaas oo u mahad celisay John iyo Prudence sababtoo ah waxay sidoo kale xafladda ku casuumeen saaxiibkeed wax yar kadib Prudence waxay ogaatay in John uu sidoo kale casuumay Finch iyo beeraleyda sanadaha badan ka shaqeynaya dhulkan tan markay maqashay Prudence ayaa shucuur ahaan isbedeshay gaar ahaan markay aragtay sida uu John u daryeelay qof kasta oo halkan ka shaqeeya inkasta oo uusan waqti badan joogin hadda intii lagu jiray jimicsigooda jawigu wuxuu yara noqday jacayl John iyo Prudence aad bay isugu soo dhawaadeen waxayna u muuqatay in labadoodu ay isdhunkan rabaan laakiin isla markiiba aanay iyo xubno ka tirsan shaqaalaha ayaa arkay labadooduna waa ay joojiyeen kadib John wuxuu dib ugu noqday garaashka si uu u hagaajiyo gaadhigiisii duuga ahaa Williamna wuxuu bilaabay inuu caawiyo gadaal dambe markii ay motorka hagaajinayeen William wuxuu si furan uga hadlay wixii tagay wuxuu u sheegay inuusan weligiis helin warqadihii hooyadiis gabi ahaanbana muusan ogsoonin inuu wiil leeyahay wuxuu kaloo sheegay inuu dhowr jeer waraaqa u diray hooyadiis laakiin wax jawaaba ma helin waxaana u qaatay in duuta ay nolosheeda horey u sii wadatay kadib John ayaa u sheegay in iyaduna aysan helin wax warqada oo isaga ka timid markaas ayay fahmeen in qof uu si ula kaca u kala fogeeyay hadda John wuxuu William ka codsaday inuu isku dayo inuu motorka kiciyo markii uu William faraha wareejiyay gaadhigii qadiimiga ahaa hore ayuu ka kacay isla markiiba labadooduba aad ayay u farxeen waxayna u qosleen sidii carruurta oo kale dhanka kale Alistair ayaa si dhuumasho u galay qolka waxbarashada ee William wuxuuna ka helay shahaadada dhalashada ee John markuu arkay ayuu dhoola cadeeyay sidii inuu maagan yahay shirqool aad u weyn maalintii xigtay John wuxuu William ku qaaday gaadhigii qadiimiga ahaa oo u kaxeeyay wareeg hadda gaadhigaasi kadib markii la dhaqay oo la casayay wuxuu u muuqday sidii mid cusub oo iftiimaya Prudence iyo ninka adeega u qaabilsan qasriga ayaa meel fog ka daawanayay waxayna aad ugu faraxsanaayeen inay arkaan aabaha iyo wiilka oo aad iskugu soo dhawaanaya kadib waxay aadeen beerta halkaas oo John sidoo kale hagaajiyay mishiinkii shidaha ee sanadaha badan xumaa hadda Finch iyo beeraleyda inteeda kale waxay isticmaalayeen mishiinkaas si ay u sameeyaan cabitaan daray ah kaas oo ay ka helayeen lacag fiican kadib markii ay iibiyeen William markuu waxaan arkay aad buu u farxay wuxuuna markiiba casuumay qof walba inay ku soo biiraan dabaaldega laakiin markii ay ku laabteen qasriga Alistair iyo hooyadiis ayaa hore u sii sugayay waxay sheegeen in John uu dhashay kadib markii la baabiyay guurkii William iyo Dottie tani waxay la macno ahayd in dhanka sharciga John loo arkay ilmo sharci darro ah mana noqon karo Duke markii ay maqleen arrintan William iyo John labadooduba dhulka ayaa la wareegay wax ay ku jawaabaanna way garan waayeen qalbiga John wuxuu ahaa mid gabi ahaanba jabay laakiin wali wuxuu ku faraxsanaa inuu ugu yaraan fursad u helay inuu barto aabihiis hadda shaqo umaysan oolin halkaas sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu baxo halka Prudence ay si isdaba joog uga codsanaysay inuu joogo arrintan John wuxuu ku jawaabay inuusan weligiis qayb ka ahayn meeshan kadibna wuxuu ka baxay halkaas hadda John wuxuu aaday baarkii halkaas oo uu qof kastaaba hore u maqlay warkan dadku dhammaantood aad bay u murugaysnaayeen waxay go'aansadeen inaysan tagin dabaaldega gabi ahaanba la'aanta John dhanka kale Annie iyo shaqaalaha qasriguna isku mid ayay dareemayeen si ay u taageeraan John waxay sidoo kale go'aansadeen inaysan aadin xafladda dhanka kale xafiiska dhexdiisa Prudence waxay mar kale eegaysay shahaadada dhalashada John isla markaas indhaheedu waxay qabteen faahfaahin gaar ah sida ugu dhaqsiyaha badan ayay u fahantay waxay la macno tahay waxayna isla markiiba u oraday inay hesho John waxayna u sheegtay inuu istaago waxayna John ku tiri fadlan imo xafladda qoobka ciyaarka waliba aniga dartay ka hor inta aysan xafladdu bilaaban William ayaa soo dhaweynayay martida laakiin markiiba wuu amakaagay markii uu arkay Dottie oo meesha imaanaysa farxadiisa lama cabiri karin isla markiiba gudaha ayuu galay si uu la kulansiiyo qof kasta muddo yar kadib John ayaa sidoo kale la yimid Prudence iyo asxaabtiisa halkan Alistair iyo hooyadiis aad bay uga xanaaqeen markii ay arkeen waxaasoo dhan maxaa yeelay gabi ahaanba maysan jeclaysan sida ay aaminsanaayeenba dadka caadiga maxay ka sameynayaan dabaaldega boqortooyada dadka dhexdooda John ayaa si lama filaan u arkay hooyadiis uu yaabay maxaa yeelay xitaa ma uusan ogin hooyadiis ay halkan imaanayso isla markiiba Dottie ayaa habsiisay oo sheegtay in William uu hore ugu soo diray tigidhka diyaaradda sidoo kalena uu ku casuumay inay timaado munaasabadan kadib William ayaa hormaray martida oo dhan oo si furan u sheegay dareenkii uu sanadaha badan qalbiga ku hayay wuxuu sheegay in hal isbuuc gudahood ay noloshiisu si buuxda isu bedeshay wiilkiisa dartii xasuusihii hore ayaa dib u soo noolaaday wuxuuna hadda dareensan yahay in laga yaabo inuu heli karo noloshiisii luntay sanado ka hor kadib wuxuu dadka hortooda kaga dhawaaqay in John uu noqon doono dhaxal sugihiisa xiga markuu taas maqlay Alistair ayaa isla markiiba soo booday oo bilaabay inuu diido go'aankan wuxuu ka adkaystay in John uu yahay ilmo sharci darro ah uusan noqon karin Duke isla markiiba Prudence ayaa soo dhaxgashay oo daaha ka qaaday xaqiiqada waxay sheegtay in saxiixa William ee warqadaha lagu barinayay guurka uu yahay mid been abuura arrintan waxaa aad loogu cadeyn karaa marka saxiixaas la barbar dhigo farta rasmiga ah ee William wuxuu wax ku qoraa gacantiisa bidix qaabkiisa saxiixana waa mid aad uga duwan oo ay qof kasta ku adag tahay inuu koobiyeeyo markii uu intaas maqlay Alistair aad buu u baqay oo bilaabay inuu iska murgiyo laakiin William ayaa isla markiiba cod dheer ku yiri halkan ka bax
intaas kadib Johnny ayaa hore u soo baxay oo habsiiyay aabihii intaas kadib Johnny wuxuu sidoo kale sharaxay qorshihiisa mustaqbalka wuxuu ku dhawaaqay inuu rabo inuu shirkad cabitaan la bilaabo beeraleyda inta badan ku noolaa dhulkan kadib dhamaadkii sheekada Johnny wuxuu Birdians ugu yeedhay qoobka ciyaarka martidii kale ayaa iyaguna ku soo biiray qoobka ciyaarka hoolka dhanna waxaa buux dhaafiyay farxad kadib qoobka ciyaarka Johnny wuxuu Birdians geeyay beerta dhexdeeda halkaas wuxuu uga sheegay wixii qalbigiisa ku jiray Birdiansna way ka aqbashay waxaynu ku soo gabagabowday dhunkasho muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe dhe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan waxaynu ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga